waa marka hore waan idin salaamayaa marka xigta waxaan halkan dadweynaha reer Soomaaliland uga soo tabinayaa anigoo ku hadlaya magaca wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo jooga dalka Guinea waxaan rabaa halkan inaan uga soo tabiyo salaan hambalyo iyo warbixin ku saabsan hawlihii aanu kala kulannay safarkayagii waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliland ugu hambalyeynayaa inuu safarkaas safar ahaa mid guul ku dheehan tahay oo runtii wax badan ugu qabsoomeen waxaan kale oo reer Soomaaliland ku ammaanayaa deegaanadiisa iyo dawladdiisa iyo cid walba sida niyad wanaagga ah iyo sida fiican loo soo wada dhaweeyay waxaan aad u ammaanayaa deegaanka maxaa gobolka Awdal oo ugu horeeyay oo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii ay si midaysan hawsha dawladda ugu hambalyeeyeen iyo madaxweynaha iyo wafdigiisa haddii aan warbixin yar ka bixiyo mid wax noogu qabsoomeen safarkayaga waxaanu ku sii maray dalka Ivory Coast la yidhaaho magaalada Abidjan la yidhaaho dabeedna waxaanu u gudubnay markaanu Addis Ababa ka tagnay waxaanu Abidjan dabeedna waxaanu u sii gudubnay magaalada dalka la yidhaaho Guinea caasimadiisa oo Conakry la yidhaaho waxay la tahay dhammaantiin halka telefishinka waad ka daawateen telefishinada sida qiimaha leh maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha loo soo dhaweeyay iyo wafdigiisaba intii ka dambeysay waxaanu ku jiray casuumado iyo soo dhaweyn iyo wada hadal iyo wada sheekaysi iyo inaanu wax badan oo cilaaqaad ku soo wanaagsanaanayaan ama la isugu soo dhaweynayo aanu ku kulanno waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn nooga soo kordheen madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo mandaqada oo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo la isla gartay oo la isla meel dhigay waxaanu aaminsanahay in cilaaqaadkaasi wax badan u soo kordhinayo dhinac walba inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidina ma taqaana mid aan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto waxaana soo gaadhayay ilaa maanta waanu social media ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday sidaa daraadeedna uu gooyay cilaaqaadkii uu lahaa dalka Guinea maamulka xamar ka dhisani isagaa Guinea u baahan maanta Guinea uma baahna waxaana kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Guinea iyo Somaliland waxba ma yeeli karo haba yaraatee xamar iyadaa la ilaaliyaa maamulka halkaa jooga isagaa wax la taraa isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa isagaa guryaha lagu hayaa isagaa dhaqaale la siiyaa isagaa ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan annaga waxba yuu nagu canaananin maxay ahayto isagu isagaa wax iska biinaya annaga wax alaaliya wuxuuna yeelaya ma jirto waxaa keliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka iyo wax uun kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu mar raba maamulkaasu wax kale ku kicin dhowrkii sanadood u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqaynayay dhinac walba wixii aan ku kala fogaan lahayn haddii ay tahay arrimaha ay ka mid yihiin mucaawanooyinkoona la dagaalamo dadkeenoo isiraaho mataqaanaa go'doomiya maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihii nabadgelyada aynu labada nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga oo ama la isugu soo dhawaado maamulka lagama arag Somaliland marka kama caban Somaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo daris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la'aan Somaliland
waxba yeeli karo maamulkaasu somaliland joojin mayso haddii ay saa ku wadana dalal badan bay cilaaqaad ka goosanaysaa waayo somaliland horena caalamka xidhiidhay ula lahayd iminkana way malaa iminkun bay ku hambabereen maantay ku hambabereen somaliland mar walba cilaaqaadka way waday wadamo badan oo afrika iyo asia iyo yuruba ah ayay la leedahay somaliland cilaaqaad oo mar walba ay maxay to ay isdhaafsanayeen booqashooyin iyo wada hadallo iyo arrimaha isugu soo dhowaanayaan waxaad ogtihiin in somaliland lagu soo dhoweeyey brotocoolka buuxa ay wadamo badan loogu soo dhoweeyey waxaan la yaab lihi waxa weeye somaliland uguma horeyn maanta inay caalamka madaxdeeda madaxweynayaasheeda inay tagaan dalal kale oo cilaaqaad iyo soo dhoweyn iyo wada hadal iyo xidhiidh iyo wanaagsan ay wada yeeshaan haddaan tusaale usoo qaato inta dal soomaaliya waxaad moodaa maanta inay ku hambabartay intii hore aanay waxba dee aanay iminka una hambabartay dalalka madaxweynayaasha somaliland tageen ee lagu soo dhoweeyey haddaan tusaale idinka soo qaato waxaa ka mid ah dalka ethiopia jabuuti afrika keliya ethiopia jabuuti senegal south africa kenya uganda tanzania malawi intaaba madaxweynayaasha somaliland way wada tageen caalamka kale xagga asia iyo caalamka kaleba yurub waxay tageen UK France waxay kaloo tageen Turkey waxay tageen Saudi Arabia waxay tageen Imaaraadka waxay tageen Kuwait meel walba madaxweynayaasha Soomaaliland ma intii ay u baahaneen wali dal is hortaagay ama yiri noo imaan maysaan ama aan maqaam ka lahaayeen ku soo dhaweyn lama arag laakiin nasiib darro waxaad moodaa qoladan may ogeyn maanta bay ku naxeen haddii ay cilaaqaadka u gooyaan dalalka somaliland way tegaysaa dalal badan bay tegaysaa dalal badan bay somaliland tegaysaa la xidhiidhaysaa cilaaqaad la yeelanaysaa ha ka tashato inay ka goosanayso soomaaliya kii somaliland tagtaba inay ka goosanayso shicib weynaha reer somaliland u sheegayaa marka in uu safarkaasu ahaa safar guul ah waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha dalkan Guinea ee aan joogno iyo dowladdiisa iyo shicibka reer Guinea Conakry oo runtii si aad u qiimo leh noo soo dhaweeyey noona muujay walaalnimo iyo soo dhawaansho iyo wax wada lahaansho iyo xidhiidh wanaagsan mar labaadna waxaan salaamayaa bulshada reer Somaliland waxaan baliyeynayaa sida xamaasadda leh ay u dhaqantay isku soo dhawaanshaha iyo sida mataqaanaa xamaasadda leh ee ay u muujisay u dhiirigelisay dowladdeeda isugu barbartaagtay safarkaas iyo howlaha kale badan ee dowladdu hayso waxaanu shacabka reer Somaliland mar labaad loo aanu u tabeenaynaa in fadqalalooyinka iyo wixii waxyeelaya dowladnimadeed in laga digtoonaado oo maxay tahay dadku shacabku ay isu barbartaagaan dowladda iyo wixii dalku hagaagi lahaa